diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaana bartilmaameedsada sida la sheegay xarumo ku yaala magaalada Khan Younis lagu magacaabo ee dhanka galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta sidoo kalena dhanka koonfureed kaga beegan marinka Gaza. waxaa lagu warramayaa taasi inay keentay jawaab adag oo ay ka bixiyeen kooxaha ka soo horjeeda Israa'iil. waxa ay sheegeen dhankooda inay weerar ay ku qaadeen xarumo ay ku sugnaayeen diblomaasiyiin sarsare oo ku yaala dhulka Israa'iil. khasaaraha ayaa lagu warramayaa in waxyeelada ugu daran ay soo gaartay dadka rayidka ah. ma jirto laakiin faahfaahin rasmi ah oo ku aadan khasaaraha guud ee ka dhashay duqeynta, iyada oo maanta la sheegaya in xaaladda guud ee marinka Gaza aad ay u kacsan tahay. dhinaca kalena marka aynu eegno Ukraine, mas-uuliyiinta dowladda Ukraine ayaa shaaca ka qaadaya macluumaadka ku saabsan in Ruushka uu bilaabay howlgalka wadajirka uu ka sameynayo dhanka iyo bari ee dalka Ukraine. sidoo kalena waxay sheegeen inaysan jirin sabab rasmi ah oo ay dowladooda ay kaga hortagi karayaan howlgalkani wadajirka ay u muuqanaya inuu yahay madaxweynaha dowladda Ruushka inuu iclaamiyey. maalintii shalay dowladda Ukraine ayaa waxay ku dhawaaqday bilowga howlgalka wadajirku ay sameynayaan ciidamada dowladda Ruushka kana dhacaya dhanka bari ee gobolka Donbass, halkaasoo dagaalada ay kusii xoogaysanayaan. sidoo kale xoogga dagaalada ayaa ka dhacaya magaalada Mariupol, iyadoo aqalka cadna la sheegay inaysan haynin wax qorshayaal oo ku aadan madaxweyne Joe Biden booqashadii la doonayo inuu ku aado magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. aqalka cad ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in madaxweyne Joe Biden la doonayo inuu halkaasi uu booqdo, laakiin ma jirto macluumaadyo kale oo arrintaasi ka soo baxaya. laakiin qorshaha ayaa u muuqanaya in aysan jirin in iminka madaxweyne Joe Biden suuragal ay tahay booqasho inuu ku tago magaalada Kiev. madaxweynuhu wax qorshaha kama lahan in halkaasi uu gaaro. waynu ku celinaynaa tan, sidaasi waxaa tiri haweeneyda afhayeenka u ah aqalka cad ee dalkaasi Maraykanka Bisaki, haweeneyda lagu magacaabo. dhinaca kale marka la eego dagaal xoogan ayaa maanta waxay ka dhacayaan deegaanada ku yaala dhanka bari ee dalka Ukraine. dowladda Ukraine waxay u muuqanaysaa in xaaladdu ay ku sii xumaanayso inkastoo ay sameynayaan la tacaalidda naftooda. waxaa kaloo ay sheegeen inay dagaalami doonaan ilaa ugu dambeyn ay ka dhintaan ama uu ka dhinto askariga ugu dambeeya ee ciidamadooda. sidaasoo ay tahayna Ruushka ayaa xooggiisa isugu geynaya deegaanada dhaca dhanka bari ee dalka Ukraine. dhinaca kalena xiisad adag ayaa weli waxay ka taagan tahay gudaha dalka Sweden. wadamada carabta iyo sidoo kale ururada islaamiga ayaana si weyn u cambaareynaya dhacdooyinka ka taagan gudaha dalka Sweden oo xiisadda u muuqato in aad ay u sii kordhayso. Sweden ku dhawaad 5 maalmood waxaa ka dhacaya mudaharaadyo waaweyn oo ay dhigayaan dadka muslimiinta ah ee ka soo horjeeda in kitaabka Quraanka Kariimka ah la gubo. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaa soo saartay war qoraal ay ku cambaareynayso gubitaanka kitaabka Quraanka Kariimka, waxaana ay sheegeen taasi inay tahay ficil aanan gabi ahaanba indhaha laga eegin karaynin. waxay ugu baaqeen dowladda Sweden inay wax ka qabato arrimahan. haddii dib dagaalada Ukraine aan ugu soo laabanana dowladda Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in ay qorsheynayaan inay qiimeeyaan suuragalnimada inay dib u furaan safaaradii ay ku lahaayeen magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaca ka qaaday inay sii wadi doonaan wadahadallada iyo dadaaladooda ku aadan sidii loo qaboojin lahaa dagaalada ka soconaya gudaha dalka Ukraine. wadahadallada